السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت سود هذا مال كستو جوكتان أدبا إذن سلاميان رجع دمر سود هذا أيد ليه عروت هذا جرمال كمدجنت هاي عروت هذا سكول مدكتان هدي جوابت هذا هات هاي مدكتان حيصد اللي يقان إسلامي وأنت غشت أما حيصد إسلامك هدي جوابت هذا هات هاي فيديو كان أدبو كوان فعيا أما أجرني سقف عروتي سدكتان حيصد داسي فيديو كان أيا ربع واحد بدنا وفايدي qodobada ku xig wuxuu yahay saa ogtahay jarmalka gobollo badan ayaa waxay ogolaadeen in caruurta loo dhigo xiisada loo yaqaan islaamic unterricht waa maxay islaamic unterricht waxay xiisad islaamka ka sheekeynayso oo dadka muslimiinta ee la rabo inay dhigtaan xiisadan ayaa raba inaan waxda idin faahfaahiyo waa maxay xiisadan inta badan magaca ayaa islaamic laga dhahaa laakiin mashaakil ka jir wuxuu yahay dadka waxa lagu baraa akhlaaqiyadka ugu xun waxyaalaha ku qoran waa islaamkii oo la dhahay magacii islaam laga dhigay laakiin sawirada gudaha ku xusan akhbaarta informationka dhammaan wax raad kula islaamka maahan waxa lagu talagalay caruurtaada in manipulation lagu sameeyo waxa lagu talagalay caruurtaada in maskaxdooda lagu bedelo in islaam nooc kale caruurtaada la baro gobollo badan ayaa hadda waxa ka bilowday in waalidkii ay ka baxsadaan caruurtooda xiisada loo yaqaan islaam muntaqishtiga sababta ayaa ah maadaama waalidka ay dareemeen in xiisadaasi ay tahay xiisad islaamnimada caruurtooda xitaa looga ciyaarayo oo diin kale nooc kale islaamka la barayo saas darteed ay u joojiyeen iskuulada qaar dacwad ayay ka fureen waalidiintii laakiin maadaama si kasta ay noqoto xaqa u leedahay cunugaaga xiisada uu dhiganayo adiga dooran karo ilmaha iskuulka waxa loo soo diraa ima inuu catholic barto waxa loo soo diraa ima inuu islaam qaato ima inuu dhigto ethic ani ahaan marka talada ku siinay waxay tahay in caruurtaada u doorato xiisada ethiga loo yaqaan xiisada ethiga waa wax lagu barto dhaqamada ama caadooyinka ka jira wadanka ma aha wax si gaar ah ku saameynaya wax si gaar ah diin uga hadlay ma aha saas darteed haddii cunugaaga sanadkan iskuul uu dhiganayo isku day ama uu dhigto xitaa in xiisada islaamic unterricht loo ka saartid haddii aadan ka saarin xiisadaasni maalin ayaad ka shalayn doontaa waa wax xaqiiq dhabic sababtoo hadda qodobo badan oo akhriyo waxaan arkay waalidiin badan oo ka cabanayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت سود هذا مال كستو جوكتان أدبا إذن سلاميان رجع دمر سود هذا أيد ليه عروت هذا جرمال كمدجنت هاي عروت هذا سكول مدكتان هدي جوابت هذا هات هاي مدكتان حيصد اللي يقان إسلامي وأنت غشت أما حيصد إسلامك هدي جوابت هذا هات هاي فيديو كان أدبو كوان فعيا أما أجرني سقف عروتي سدكتان حيصد داسي فيديو كان أيا ربع واحد بدنا وفايدي qodobada ku xig wuxuu yahay saa ogtahay jarmalka gobollo badan ayaa waxay ogolaadeen in caruurta loo dhigo xiisada loo yaqaan islaamic unterricht waa maxay islaamic unterricht waxay xiisad islaamka ka sheekeynayso oo dadka muslimiinta ee la rabo inay dhigtaan xiisadan ayaa raba inaan waxda idin faahfaahiyo waa maxay xiisadan inta badan magaca ayaa islaamic laga dhahaa laakiin mashaakil ka jir wuxuu yahay dadka waxa lagu baraa akhlaaqiyadka ugu xun waxyaalaha ku qoran waa islaamkii oo la dhahay magacii islaam laga dhigay laakiin sawirada gudaha ku xusan akhbaarta informationka dhammaan wax raad kula islaamka maahan waxa lagu talagalay caruurtaada in manipulation lagu sameeyo waxa lagu talagalay caruurtaada in maskaxdooda lagu bedelo in islaam nooc kale caruurtaada la baro gobollo badan ayaa hadda waxa ka bilowday in waalidkii ay ka baxsadaan caruurtooda xiisada loo yaqaan islaam muntaqishtiga sababta ayaa ah maadaama waalidka ay dareemeen in xiisadaasi ay tahay xiisad islaamnimada caruurtooda xitaa looga ciyaarayo oo diin kale nooc kale islaamka la barayo saas darteed ay u joojiyeen iskuulada qaar dacwad ayay ka fureen waalidiintii laakiin maadaama si kasta ay noqoto xaqa u leedahay cunugaaga xiisada uu dhiganayo adiga dooran karo ilmaha iskuulka waxa loo soo diraa ima inuu catholic barto waxa loo soo diraa ima inuu islaam qaato ima inuu dhigto ethic ani ahaan marka talada ku siinay waxay tahay in caruurtaada u doorato xiisada ethiga loo yaqaan xiisada ethiga waa wax lagu barto dhaqamada ama caadooyinka ka jira wadanka ma aha wax si gaar ah ku saameynaya wax si gaar ah diin uga hadlay ma aha saas darteed haddii cunugaaga sanadkan iskuul uu dhiganayo isku day ama uu dhigto xitaa in xiisada islaamic unterricht loo ka saartid haddii aadan ka saarin xiisadaasni maalin ayaad ka shalayn doontaa waa wax xaqiiq dhabic sababtoo hadda qodobo badan oo akhriyo waxaan arkay waalidiin badan oo ka cabanayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت سود هذا مال كستو جوكتان أدبا إذن سلاميان رجع دمر سود هذا أيد ليه عروت هذا جرمال كمدجنت هاي عروت هذا سكول مدكتان هدي جوابت هذا هات هاي مدكتان حيصد اللي يقان إسلامي وأنت غشت أما حيصد إسلامك هدي جوابت هذا هات هاي فيديو كان أدبو كوان فعيا أما أجرني سقف عروتي سدكتان حيصد داسي فيديو كان أيا ربع واحد بدنا وفايدي qodobada ku xig wuxuu yahay saa ogtahay jarmalka gobollo badan ayaa waxay ogolaadeen in caruurta loo dhigo xiisada loo yaqaan islaamic unterricht waa maxay islaamic unterricht waxay xiisad islaamka ka sheekeynayso oo dadka muslimiinta ee la rabo inay dhigtaan xiisadan ayaa raba inaan waxda idin faahfaahiyo waa maxay xiisadan inta badan magaca ayaa islaamic laga dhahaa laakiin mashaakil ka jir wuxuu yahay dadka waxa lagu baraa akhlaaqiyadka ugu xun waxyaalaha ku qoran waa islaamkii oo la dhahay magacii islaam laga dhigay laakiin sawirada gudaha ku xusan akhbaarta informationka dhammaan wax raad kula islaamka maahan
waxaa loogu talagalay carruurtaada in manipulation lagu sameeyo, waxaa loogu talagalay carruurtaada in maskaxdooda lagu bedelo, in islaam nooc kale carruurtaada la baro. gobollo badan ayaa hadda waxaa ka bilowday in waalidkii ay ka baxsadaan carruurtooda xiisada loo yaqaan islaam muntaqishtiga. sababta ayaa ah maadaama waalidka ay dareemeen in xiisadaasi ay tahay xiisad islaamnimada carruurtooda xitaa looga ciyaarayo oo diin kale nooc kale islaam kale la barayo, saas darteed ay u joojiyeen. iskuullada qaar dacwad ayay ka fureen waalidiintii, laakiin maadawey si kastay noqoto xaqa u leedahay cunugaaga xiisada uu dhiganayo adigaa dooran karo. ilmaha iskuulka waxaa loo soo diraa imaa inuu katoolig barto, waxaa loo soo diraa imaa inuu islaam qaato, imaa inuu dhigto ethig. ani ahaan marka talada aan ku siinayo waxay tahay in carruurtaada u doorato xiisada etiga loo yaqaano. xiisada etiga waa wax lagu barto dhaqamada ama caadooyinka ka jira waddanka, ma aha wax si gaar adag kuu saameynaya, wax si gaar diin ooga hadlaya ma aha. saas darteed haddii cunugaaga sanadkan iskuul uu dhiganayo isku day ama uu dhigta xitaa in xiisada islaamiga unterishtil dhaho aa ka saartid. haddii aadan ka saarin xiisadaasni maalin ayaad ka shalayn doontaa. waa wax xaqiiq dhabac. sababta hadda qodobo badan oo akhriyo waxaan arkay waalidiin badan oo ka cabanaya